بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada daawadayaal madasha sahan talks oo falanqeyn isbuuclaha ku sameeysa waxyaabaha ka socda dhacdooyinka adduunka ka socda iyo sariixiha quwadaha bariga dhexe khaasatan maadaama ay tahay mandaqada ugu muhiimsan iyo adduunka oo dhanba insha Allah taala madashan galabta ama maanta waxaan ku eegaynaa toddobaadlaha waxaan ku eegaynaa wada hadalka u dhaxaya Mareykanka iyo Iran oo qaatay wareegyo badan qaatay oo si aan toos ahayn wada hadallo ay uga socdaan magaalada Masqat caasimadda dalka Cumaan wada hadalladaas waxa keenay sababaha ka dambeeya waxa uu ka rajeynay wadan kasta iyo waxyaabaha ku khasbay wadan kasta inuu yeesho wada hadalkaas ka qayb galo waxyaabaha keenay iyo malafaadka ama dokumentiyada ama meelaha ay isku hayaan labada dawladood ayaan insha Allah taala falanqeyn doonaa marka hore waxaan ku bilaabaynaa taariikhda uu soo maray wada hadalkani waa taariikh runtii dheer oo ka soo bilaabatay ilaa iyo xilligii ay bilowday dawladda ay bilowday Iran ay bilowday inay bacrimiso uraniumka iyadoo ku andacoonaysa inay samaysanayso hub nuclear ama waxaan leeyahay nuclearka loo adeegsado arrimaha silmiga ah iyadoo sheegaysa laakiin Mareykanka iyo quwadaha galbeedku ayagu waxay dareensan yihiin inay markasta Iran ay u socoto inay hesho hub nuclear hesho taariikhdaas marka dhow haddaan ka soo bilowno ilaa iyo waxay ka soo bilaa 15kii markii maamulkii hore ee Mareykanka Obama hogaaminayay wada hadal yeesheen Iran wada hadalkaas waxay isla gaareen inay si qayb ah looga qaado cunaqabataynta looga qaado dawladda Iran ayagoo sidoo kale ku heshiiyay waxa weeye Iran sidoo kale ogolaato si qayb ah inay u fudho xarumaheeda ay ku bacrimiso nuclearka ama uraniumka wada hadalladaas marka waxay keeneen inay dawladdu soo dhawaadaan Mareykanka soo dhawaadaan inkastoo ay qayb ka ahaayeen nimanka la yiraahdo reer galbeedka oo dhan sida mataqaanaa groupka loo yaqaanay 5+1 5+1 ama 5 lagu daray hal lagu daray oo 6 dal ay ahaayeen iyo ayada marka wada hadalladaas noocaasi waaga ay socdeen xilligaas waxa marka fadradii hore ee Trump ama xilligii hore ee Trump ayaa waxa la gaaray inay Mareykanka hadana ka noqdeen wada hadalladii ka noqdeen ayadoo shuruudo adag Mareykanku uu saaray khaasatan xilliga wasiirka arrimaha dibadda ahaa Pompeo ninka la dhihi jiray wuxuu saaray shuruudo adag oo 12 oo Iran mataqaana aad iyo aad ugu cadaadiyay cunaqabataynta meeshii ugu sareysay tan lagu tilmaamo uu saaray kadibna Iran ay mataqaana ay ku tilmaantay wax aan suurtagal ahayn iyo wahmi ama ismoodsiin oo Mareykanku ismoodsiiyay waxaan jirin uu iska dhacsiiyay adigu taariikhdaas ayada ah oo halkaas soo maray Mareykanku uu Trump waxa weeye qaybta ka ahaa inuu burburiyo heshiisyada wada gaarin labada dawladood waxa ka dambeeyay maamulkii Biden oo asagu ku sii socday bal inuu waxa weeye ka helo masaalix dheeraad ka helo Iran ka helo cunaqabatayntii waxa weeye uu Mareykanku saaray ama Trump maamulkiisu saaray inuu sii waday asagoo rajeynaya ama door bidaaya inuu helo fursado dheeraad oo Iran ka helo marka Trump ama waxa weeye waxaan leeyahay Biden fadradiisu way dhamaatay waxaana ku dhamaatay iyadoo aan wax heshiis la gaarin oo labaad la gaarin marka laga soo tagotii la gaaray ninka la yiraahdo Obama la gaaray iyadoo la gaarin ayaa waxa soo noqday Trump wuxuu bilaabay mufaawadaad maadaama asagu yahay ninkii markii hore gooyay xiriirka gooyay oo cunaqabatayn adag saaray Iran ay ku noqotay inay dib u bacrimiso uraniumka ayadoo ma ay joojin laakiin waxay dib u bilowday inay uraniumka bacrimiso nuclearkeedii iyo hawlaheedii si wado isku dhacaya yimi markii hore oo idaaradii hore ama qaybtii hore oo Trump isku dhacaya yimi waxay isku dhawaadeen labada dawladood isku dhacaan hadda markuu soo noqday wuxuu bedelay Trump wuxuu bedelay hadafkii ayuu bedelay ama yoolkii uu kala haa wada hadalka ayuu bedelay wuxuuna yiri anaga yoolka ugu dambeeya aan ka leenahay waxa weeye inay Iran joojiso uraniumta inay joojiso inay hub nuclear hesho marka wuxuu ku soo noqday dib ugu soo noqday wada hadallada asagoo oo marar badan danaynaya inuu noqdo rajul salaam oo ama nin mataqaana peace man oo nin nabad ka shaqeynaya uu noqday isagoo mufaawadaadkii ama wada hadalladii Ukraine iyo Ruushka hogaaminaya mid Xuutiyiinta la galay hogaaminaya waxyaabo badan hogaaminaya ayuu tanna isku dayay inuu qayb cusub keeno laakiin
wuxuu ku khasban yahay Trump inuu helo heshiis uu ka gado dadka Mareykanka ah inuu dhaamo kii Obama galay oo awal hore u buriyay Iran waxadeedu waxyaabo badan ayaa ka hortaagan inay heshiiska hadeer si degdeg u gasho oo waxa weeye ay aad mataqaana ugu balkiiso sababtoo ah waxay dareensan tahay inay Mareykanku ka bixin karo ama reer galbeedku ka bixin karaan wada hadaladii waxaan isweydiinaynaa marka intaas kadib maxay tahay malafaadka ama dukumentiyada ugu culus oo ay Mareykanka iyo Iran isku hayaan markii wada hadaladan ay galeen oo soo baxaya oo caqabad ku noqon kara wada hadalkaas inuu sii socdo kow waxa ka ah caqabad ku ah heshiiskan Iran waxay rabtaa damaanad bay rabtaa ama wax damiin ka noqonaya in wada hadalkan uu noqdo mid mira dhala uu noqdo Mareykankuna sidoo kale damaanad buu rabaa ama wax damiin ka noqdo inay dawladda Iran ay si bacriminayn hubkii nuclear-ka ahaa ama hubkii nuclear-ka sameeyeen Iran waxay taagan tahay waxa loo baahan yahay in ittifaaqan ama heshiiskan laga dhigo mid sidii mucaahada ah ama waxa weeye heshiis dawli ah heshiis dawli oo international ah oo labada baarlamaan oo labada dawladood laga ansixiyo Mareykanku asaguna wuxuu rabaa sidoo kale damaanad la taaban karo oo hubka nuclear-ka inaysan dawladda Iran ay sameeysaneen mar dambeeto oo ah in wakaaladda atomikada adduunka ay kormeerto munshaadka ama waxa weeye meelaha ay ku sameeyso nuclear-ka ku sameeyso oo dhan inay kormeesho sidoo kale malfaadka hor yaala labada dawladood oo ay mataqaan isku mari leeyihiin waxa kamid ah Mareykanka oo dalbanaya in bacriminta uraniumka inay si totally ama si guud inay u joojiso mataqaana nimanka la yiraahdo Iraniyiintu u joojiyaan Iraniyiintu taa waa diiday oo anagu waxay dhahayn macnaha uraniumta markasta waa bacriminayna anagoo uga faa'iideysanayna arrimaha silmiya iyo tan laga dhaliyo waxa weeye loo adeegsado waxa weeye waxyaabaha madaniga loo adeegsado Mareykanku wuxuu leeyahay qalabka ama alaabta loo adeegsado in lagu bacrimiyo waa in asal ahaanba ay waxa weeye Iran joojisaa alaabta lagu bacrimiyo qalabka lagu bacrimiyo waa in laga qaadaa oo ay joojisaa laakiin Iran bedelka waxay aragtaa in aysan suurtagal ahayn iyadoo ay munshaadkan ama waxa weeye meelahan ay iyadu leedahay qalabkan iyadu leedahay meelaha cidda ku shaqeysan iyadu ay tahay ay mas'uul ka tahay taasuna ay siyaasadda dakhliga tahay aan la soo fargelin karin sidoo kale waxa la isku haystaa baaritaanka la baarayo meelaha iyo goobaha lagu bacrimiyo uraniumka Mareykanku waxay leeyihiin Mareykanku waxa jisoo inay baaraan anagu inaan baaraa laakiin Iran taa ma aragto waxay leedahay waa in haddii cid baarayso waa in wakaaladda dawliga oo atomikada adduunka waa inay wuxuun ka iyadu qayb gashaa laakiin Mareykanku asaga uma fasaxayno buu taagan yahay Mareykanku sidoo kale xagga cuqubaadka ama waxa loo yaqaano dhaqaalaha cunaqabateynta xagga dhaqaalaha Iran waxay leedahay gabi ahaan laga qaado laakiin Mareykanku wuxuu taagan yahay waxa weeye si tadriijiya ama si tartiiba baan kaaga qaadaya hadba anoo fiirinaya sida aad mataa ula dhaqantid dawladaha kale iyo isku haleynta la isku haleyn karo inaad nuclear-ka joojinaysid ayadoo tahay waxa la isku hayaa sidoo kale dokumentiyo area-da ama wadamada gobolka ay waxa weeye xiriir la leedahay oo Mareykanku wuxuu leeyahay Iran waa inay joojisaa faragelinta dawladaha kale ku hayso saacidayso waxa weeye kooxaha shiicada ah dariska la ah wadamada kale oo asagu cilaaqaad kale leeyahay sida Sacuudi oo kale Xuuthiyiinta kale Iran oo kale Hezbollah oo kale waxyaabo noocaas kale ayuu ka codsanayaa markii la soo koobo Mareykanka iyo Iran waxay isku hayaan sababta uu Mareykanku u dalbanayo in mataqaana uu joojiyo Mareykanka laba group ayaa ka jira oo loobiya ka ah waxa la yiraahdaa ayuu ka faa'iideysanaya shuruudii uu saaray inka la yiraahdo bombi uu saaray nimanka la yiraahdo Iraniyiintu saaray oo shuruud 12 ah oo aad u adkaa runtii waxyaabo badan la sheegay hatta sawaariikhda waxa weeye inta ay gaarayso xadidayay oo shuruud saarayay hubka ay haysanayso xuduud saarayay faragelinta dawladda ku hayso sida Ciraaq oo kale Xuuthiyiinta oo Yemen oo kale shiicada Hezbollah oo Lebanon oo kale waxyaabahaas oo dhan bay xadidayeen shuruudahaasi
shuruudaha ayuu ka faa'iideysanaya waxa la yiraahdaa Mareykanka waxa ka jira Israa'iil waxay xoog saaraysaa in laba dawlad isku dhacaan sidoo kale la weeraro nuclear-ka waxa weeye ama meelaha goobaha lagu sameeyo nuclear-ka Iran lagu sameeyo in la weeraro ay aysan tahay laakiin Mareykanka sidoo kale waxa ka jira lobby kale ama qayb kale oo hogaaminaya ninkan la Witkoff oo hadeer ninka loo xisaaray inuu wada hadallada bariga dhexe oo dhan hogaamiyo madaxweynaha France oo madaxweynaha Mareykanka oo kaleeto iyo rag lamid ah ayaa hogaaminaya waxay leeyihiin waa in si waaqici ah loo fikiraa oo Mareykanka waa inuu wada hadal la galaa Iran oo la isugu tagaa miiska wada hadalka la isugu tagaa shuruud macquulana oo labada dawladood ka bixin karaana la saaraa marka nimanka la yiraahdo Israa'iiliintu ay waxay ka faa'iideysanayaan waxay aaminsan yihiin inay daciiftay waxa loo yaqaano jihooyinkii ama qaybihii ama kooxihii Iran xiriirka lahayd inay daciifiyeen sida Hezbollah kaleeto inay daciifiyeen dawladdii Suuriya oo Bashar al-Assad oo meesha ay loo yaqaanay hilaal shiici waxa loo yaqaano ama bisha shiicada loo yaqaano oo Iraq Iran ka soo bilaabanaysa ilaa iyo Iraq ilaa iyo Suuriya ilaa iyo Hezbollah xaggan xataa khaliijka dhinaciisa xataa isaga soo wareejisay oo loo yaqaano bisha shiicada loo yaqaano oo Iran ay fargelinta ugu badan ama saameynta ugu badan ku lahayd inay daciiftay aaminsan saadaraadii hadday daciiftay inaan Iran hadeer waxa weeye abaalmarin siino oo kor u qaadno waxa weeye cunaqabataynta laga qaado ama ay u yeelato salaaxiyo u yeelato inay dawladaha kale soo dhex gasho ma habboona ay taagan yihiin waa in aan ka faa'iideysanaa daciifinta daciifinay kooxaha iska caabinta ee nagu hareeraysanaa aan Iran duqeynaa marka iyadu loobigaas ama kooxaha barasharka ee Mareykanka ayay xoojinaysaa inay barashar ku saaraan ama cadaadis ku saaraan Mareykanka inuu kor u qaado xiisadda isaga Iran ka dhaxaysa saadaraadna la gaaro isku dhac la gaaro saadaraad Iran mataqaana Israa'iil waxa loo fasaxo ayadoo la saacidayo loo fasaxo inay Iran mataqaana meelaha duqayso laakiin waxa la yiraahdaa Mareykanka shakhsiyadda hadda Trump waxay u samaysan tahay waxyaabahu yiraahdo waxa kamid ah inuu yiraahdo aniga waxba igama dhina waxa iga dhiman kaliya inaan Nobel Peace Prize qaato Nobel Peace Prize waxyaabaha uu ku helin karo wuxuu yiraahdaa inaan adduunka nabadda ka shaqeeyo isagu dantu doona kala haado laakiin markii warka intaas waa waxa jira oo waxa way meesha ka socda laakiin markii la fiiriyo waxa ka dambeeya طبعا Iran waxay dareemaysaa inay ku jiddo xaalad cadaadis oo adag oo dhinacyada dhanka haysata Iran horta ayada hadii la fiiriyo qaabka u dhisan tahay fikir ahaan waa niman shiica ah oo isna cashariye la yiraahdo oo madhabkaas shiicada haysta waxa ku hareeraysan niman sunniyiin ku hareeraysan min Iraq laga bilaabo Turkiga Pakistan Sacuudiga khaliijka halakan sunnigaas ayaga ah madhab ahaan waa dad haya ama sida mataqaanaa dawladaha galbeedka ka faa'iideysan dad haya inay yihiin oo aan isku ideolojiyad ahayn oo isku meel u jeedin saadaradeed waxay dareemaysaa in ay cadaadis xagga madhabka ah inuu haysto waa number 1 number 2 waxay dareemaysaa in saameynteedii ay gobol ku lahayd in la soo koobay oo misalan oo kale Iraq saameynta ku lahayd hadda waxa laga yaabaa in dawlado kale uga soo xog badanayaan oo sida Turkiga oo kale oo arintii Kurdistan nimanka la yiraahdo xisbi ulama Kurdistani ama xisbigi Kurdistaaniyiinta xisbigiisi asaga hadda hubka u dhigay Suuriya waxa weeye ayagu sidoo kale hadda saameyn ku yeeshay xagga iyo meesha la yiraahdo Azerbaijan iyo dawladaha la midka ayagu hadda saameyn ku yeeshay oo ka adkaaday dawladii kale ka soo agdhawaa Iraq markaa saameyn ku yeelanayaan dhexdeeda gudaheeda ruuxadeeda ayay saameyn ku yeelanayaan Sacuudiga sidoo kale isagoo dawladaha kale ka faa'iideysanaya sida Mareykanka oo kale xataa Shiinaha iyo Ruushka cilaaqaad ku leeyahay ka faa'iideysanaya inuu dawlad iqliimiya oo weyn soo noqdo oo waxa weeye ku soo baxo ayay waxa weeye ka cabsanayaan Iraq sidoo kale kaga saameyn bato marka mandiqada oo dhan waa looga saameyn batay hadeer waxa muddo in xogaa meelaha saameynta ku lahayn in hoos soo dhacday xataa Lubnaan dhexdeeda xisbiga la dhihi jiray Hezbollah markii Israa'iil ay mataqaana u geysatay dhibaatooyinka waaweyn u geysatay oo hogaamiyaasha ugu waaweynaa ay leysay waxa la dareemaya hadeer inuu hoos dhac ku jiro xataa ay ku dhiirto dawladda Lubnaan hadeer ku dhiirto inay tiraahdo hal hub baa ka jirin doona dalka gudihiisa oo ah hubka dawladda macnaha
waagi hore laguma dhiirin kari jirin xisbullah in la yiraahdo hubkiisa hubka dawladda bas ka jiri doona sidoo kale xisbullah wuxuu ku khasbanaaday asaga oo dhibaatooyin ku dhacay waxa weeye ay riixayaan in uu waxa la yiraahdo togal liidani oo Lubnaan dhexdeeda ku yaala inuu gadaal uga dufko oo xuduudda gudaha ku noqdo sidoo kale to meeshii de u soo mari jiray xisbullah u soo mari jiray hubku soo mari jiray Iran ba hubka ugu badan sameyn jiray oo siin jiray meeshii u soo mari jiray hadda niman waxa degan kale to asaga cadow ah oo u arka inay dadkii Suuriyaanta u laayay u arka ayaa meeshii degan saadalada ayagu halkaas waxa way saameyntoodii marka waxay dareemayaan in soo daciiftay Mareykanka asagu ruuxadiisa waxyaabo ayaa ku riixaya inuu wada hadalkan galo oo ay ka mid tahay inuusan dagaalo cusub Mareykanku gelin karin inay ka mid tahay shakhsi ahaan arrimaha shakhsiga oo sida مثلا Trump aan ka sheegnay oo kaleeto inuu leeyahay waxaan u baahanahay inaan Nobel Peace Prize helo iyo waxyaabo la halmaala iyo asaga arrimaha shakhsiga oo u gaara inuu yiraahdo sidoo kale dhaqaale ahaan Mareykanku wuxuu rabaa inuu saameyn ku yeesho Iran gudaheeda oo hadda waxyaabaha ku jira wada hadallada waxa ka mid ah inuu yiri sharikaadkaygu waa inay Iran galaan Iran cunaqabatayma in badan saareyd sharikaadka Mareykanku haday galaan waxay ku sameynayaan way qabsanayaan suuqa Iran halkaas waxay noqonaysaa meel ka cadaadis ka saaran ruuxadooda nimanka dawladda kale oo ayagu ay ishayaan siyaasad ahaan sida China oo kale iyo dadka la halmaala iyo xataa Pakistan oo mataqaana ay dawlad muslime oo nuclear u arkaan Ruushka oo kale waxay u arkaan isagoo soo kale inay ka saari karaan halkan baalki marka shirkadaha Mareykanka waxyaaba wada hadallada waxa ku jira in shirkadaha Mareykanka inay galaan Mareykanku marka u soo dhigaya markuu leeyahay shirkadaha Mareykanka ha galeen wuxuu leeyahay taas waxay sabab u noqon kartaa in dawladaha aniga maamulada aniga dambeeya oo gadaalka inuu doono inaysan u fududaan inay heshiiska si dib uga baxaan maadaama shirkadaha Mareykanka ay ka helaan benefit ka helaan ama faa'iido ka helaan suuqa Iran ka helaan marka saad dalaad buu leeyahay laakiin arrimo dhaqaale meesha ku jiraan oo hadda مثلا Mareykanku hadda waxyaabaha isha wax ku fiiriyo dhan ninka la yiraahdo Trump dhaqaalaha kooka hadda carabta markuu yimi waa la garanayay kiisas kala hadlay waxa uu badnaa kiisas dhaqaale hadda Ukraine markuu dhexdhexaadinay isaga iyo kiisas kala hadlay waa kiisas dhaqaale inuu macaadintii oo kale ka faa'iideysto 150 qaato Iran hadda waxa ku jira marka malafaad dhaqaale ayaa ku jira waxyaabahaas oo dhan marka la isu keeno laakiin wada hadallada hadda wali ma aha wasiirka arrimaha dibadda oo Abbas Araghchi oo Iran wuxuu ku safeeyay wada hadallada tan leeyihiin kuwa adag laakiin faa'iido keensan kara mustaqbalka ninkan la yiraahdo murshid al-a'la Ayatollah Ali Husseini al-Khomeini ninka la yiraahdo wuxuu leeyahay mufaawadaadka ama wada hadalka waxaan ka leeyahay anigu kumana rajo culus kamaan qabo waxa weeye kamaan qabo baasays kama qabo oo dhibaato iguma hayaan macnaha wuxuu ka taagay mandaqad dhexdhexaad macnaha wuxuu leeyahay Iran marka aad fiiriso waxay ku eegaysaa il digtooni ah bay ku eegaysaa wada hadalka oo sidoo kale to Iran waxyaabay xiiriinayso waxa kamid ah oo hadda ay dalbatayba waagi hore oo ay wada hadalka ila gashay nimanka la yiraahdo Mareykanka ila gashay wada hadalka oo wada hadalka laga qaaday raqabta qayb laga qaaday waxay ilowday saaxiibadood oo China iyo Ruushka galabkooda way ka baxday oo waxay xoog saarday inay la ganacsan karto raqabadka ruuxadiis maadaama wada hadalkii ay markaas raqabateynta in fiican laga qaaday taas waxa iyadu ruuxadooda waxay ka muujiyeen inay ka xun yihiin ay ka muujiyeen Ruushka iyo China laakiin hadda waxay ku soo daraysaa wada hadallada waa inay damiin ka noqdaan Ruushka iyo China waa inay ka noqdaan ayadoo uga faa'iideysanaysa inay ayagana macnaha inay ay muujiso inay wax weeye isu dheelitirayso wada hadallada Mareykanka la gelayso iyo saaxiibadood wax weeye garabka siinayso iyadoo wax weeye baakeynaysa marka Iran sinaba ugu degdegmayso hadeer inay wada hadalka si degdeg u saxiixdo Mareykanku si degdeg uma degdegayo uma taqaana uma degdegayo saan soo sheegnayna malafaadkaas ama wax weeye qaybahaas aan soo sheegnay ay aad isugu hayaan oo ayadu dhibaato ku keeni kara in xataa uu burburo marka qaarkood oo hadda markaan sheegnay dokumentiyada la isku hayo ama meelaha la isku hayo qaybaha la isku hayo waxa ka cad inay malafaad aad culus yihiin oo keensan kara xataa haddii aan la isku fahmin inuu burburo wada hadalka inuu burburo laakiin kolba waa xadir waa wax weeye waa wada hadallo digtoon weeye oo mid kastaba uu midka kale fiirinayo waxa weeye bal wuxuu sameeyo waxaana isleeyahay
waa mid aan weli la saadaalin karin say noqon doonto laakiin ayadaa soo socday waxay noo sheegi doonaan in ay Mareykanka iyo Iran wada hadal ka wada sii socdo iyo in kaleeto waana fiirayna hadda waxa la leeyahay dawlad kale ama wax weeye wareegyo kale ayaa loo balansan yahay wada hadal ayaa loo balansan yahay oo mid lixaad iyo mid toddobaad in lagu daro si mataqaanaa la isula jilciyo meelaha la isku hayo aad iyo aad baa mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabaynaynaa lafaguridii ama qaybta koowaad lafaguridda waxa weeye arrimaha ku saabsanaa wada hadalka Iran iyo Mareykanka insha Allah taala kuwa dambe sugan doono aad iyo aad baan idin salaamay